السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ الأهانتين سوى البود نوم مقليسان إيا ميل والبود أدونك الدعا الذي ساءت كجوكتان كسو دواذا مركلة إيو برنامج كيني فاقدات دا عيارها أو أن آلابكو إيغنو قضبادا أودن بيا إسبورتسكا حدبا قضب كان مانتا حيسها لمحويهي وصادال علوس وبحيي سوبر كمبيوتر كعصرية صاداليو عيارها كبدا عقد sida aad ogtiin aqayaartan aan jecelnahay horyaalada waxa ay leeyihiin sharciyo koox waa ay ku guuleysataa kooxna booska labaad ay gashaa koox booska saddexaad ay gashaa kooxna booska afaraad afartaas kooxood ee ugu sareeyo ayaa waxa ay ka qayb galaan tartanka caalamiga ah ee Champions League haddaba ayadoo sanadkan uu horyaaladii qaarada Yurub ee waaweynaa ay gabagabay yihiin qaarkood uu hal kulan ka haray sida La Liga Isbaanishka uu hal kulan bas ka haray Talyaaniga uu hal kulan ka haray Faransiiska uu laba kulan ka haray Jarmalka oo laba kulan ka haray iyo Ingiriiska oo laba kulan ka haray asigana haddaba qodobkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa saadaasha computerka casriga ah iyo saadaasha uu ka bixiyay afarta kooxood ee u bixi doonto ama ka qayb gali doonto sanadkan tartanka Champions League haddaba tartanka horyaalka Ingiriiska koox waa ay ku guuleysato waa Manchester City kooxna booska labaad ay gashay oo waa kooxda Manchester United hase yeeshee waxaa la isku haystaa oo ay saddex kooxood isku haystaan kaalinta saddexaad iyo kaalinta afaraad saddexdaas koox ay isku haystaan waa kooxaha Manchester City kooxda Chelsea iyo kooxda Liverpool Manchester City ayaa hadda waxa ay fadhisaa booska saddexaad booska afraadna waxaa fadhisa kooxda Chelsea booska shanaadna waxaa fadhido kooxda Liverpool hase yeeshee saddexdaas koox ayaa waxa ay kala sareeyaan saddex dhibcood oo kaliya haddaba aan ku hormarnay computerka casriga ah ee ciyaaraha saadaaliyo ayaa waxa uu ka farxiyay jamaahiirta Liverpool iyo kooxda Liverpool kadib markii uu u saadaaliyay in ay ku dhameysan doonaan booska saddexaad xilli ciyaareedkan gabagabada ah maxaa yeelay saddexda kooxood ee Manchester Chelsea iyo Liverpool marka la fiiriyo kooxda Liverpool ayaa fursad fiican haysato maadaama ay u hartay laba koox oo jilicsan marka loo fiiriyo kooxda Chelsea iyo Manchester waayo kooxda Liverpool waxa uu haray kooxaha Crystal Palace iyo kooxda Burnley oo ah laba koox oo jilicsan oo ay si fudud uga talaabsan karto halka labada kooxood ee Chelsea iyo Manchester City ay ayaga laftigooda hal kulan iskugu haray oo ay tahay in midkood laga badiyo mid kasto laga badiyana ay faa'iido u tahay kooxda Liverpool hadii ay barbara galaan mar kale ay kooxda Liverpool barbara u tahay waa kulan go'aamin doono natiijada saddexda kooxood kala saari doono maadaama ay saddex dhibcood u dhaxayso oo la og yahay hadan in ay Manchester City iyo Chelsea ay ka dhexdooda isku dhimin doonaan dhibco ama mid laga badiyo ama ay barbara galaan taas oo faa'iido u ah kooxda Liverpool dhanka kale kooxda Manchester City kulan kale oo culus ayaa u haray oo ah Tottenham oo ah koox awood badan halka Chelsea kulanka kale ee u haray uu yahay kulan ay la ciyaari doonto kooxda Aston Villa oo ku jirto qaab ciyaareed fiican haddaba computerka waxa uu saadaaliyay in ay kooxda Liverpool noqon doonto kooxda kaalinta saddexaad ku jirto halka kooxda Manchester City-na oo u saadaaliyay kooxda booska afraad gali doonto halka kooxda Chelsea oo ka tuuray kaalinta shanaad sidaas darteed computerka waxa uu saadaaliyay Manchester City oo koowaad ah Manchester United oo labaad ah Liverpool oo saddexaad ah iyo Manchester City oo afraad ah afartaas koox ayaana ka qayb gali doona tartanka Champions League tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka ciido sidaas iyo nabadgelyo